aan kaga gudubno maxaa la yiraahdaa baydhabo janay iyo koonfur galbeed aanu runaantii aad baan u jeclaa baydhabo janay waa runaantii aad laakiin ma tagin laakiin cimiladeedii asxaab badan baan ku leeyahay meel qabow macaan meel qabow aad u fiican weey aad xagga markii la yiraahdo diintana taxfiidinta iyo quraanka macalimiinkeygii baa ka soo jeeda ما شاء الله marka waa meel dadkeedu quraanka ay aad u yaqaanaan saajid waaweyn oo caana ku yaal marka waan ku amaanaynaa arintaas tiktokereedii sheegaysayna أنا هالك كمان أغني نيو حنقرني أن تكتوك كذا وين شلون أركي شري أو ماركت مارمون يحمر إنه وريجي أو نبارقة بهاي وتشوفي ودي شري قوة باجرة مني كذا جا واحد يدا ندي شري قوة باجرة دي شري لأن عانوا واحد شري ده نكاسي تكتوكر كليا ما هي وزير هرانا أهان شري هذا نمل ما واحد شد إلياس هو إلياس هو وقلن شبيه عام إلياس هو مقديش أنا سكواركني حيرت اللي ذا سكواركني وحنا شري بانو مرينا يا وزير كورفافين مرها حتى قلنا هذا مال بو مضحكية هي هيد يو حتى هي قرن مايو كونفور قلبات مركا إنا عنو إسعرقنو ونقرن كو بدأ سكواركنا سكوغين ويسور تقلوي نكا حتى اسمع لوغا المغلى وزير إلياس هو يكشرتو marka ninkaas in fara badan weeyo culimada casriga ah dhinacna waa culimo sheekhul kulli weey inaan ahaan jiray Soomaaliya ku sheegin sheekhul kulli iga horeeyay weey ninkaasi oo dhalinyarada meel buu kaga daba tagay maadaama dhalinyaradu TikTok galeen TikTok buu ka daba galay marka waa nin ciyaalka xaafada ah weey waan salaamayna saasa loo baahay dadku qof soo furfurnaado halka aan kaga gudubno baydhabo iyo dadkeedina aad baan u salaamayna waxaan farayaa oo oran lahaa anigu talaacan reer baydhabo ammaanku iyo nabadgelyadu waa wax ummadda naftiina intay dhaaftay xitaa carrada iyo geedaha ayay dan u tahay xoolahaba run ahaantii nabadgelyada lagu dadaalo waxaad haysataana Allah idiin siyaadiyo guud ahaanna inta idinku harareysan iyo Soomaaliyeed guud waxaan rajaynaynaa nabadgelyo far baa ku taagan maxay hal arrin baa loobay maxay loobay baydhabo cilad jigjiga ka jirta iyadana ka jirta oo maxay tahay waa biyo la'aan biyo la'aan baa ka jirta meeshii booyada iyo dameer gaari fara badan oo biyoolayaal oo dadka waraabiya yaa waxayna haya ciladaasi jigjiga ka jirta ciladaas iyada iyo jigjiga mataanay ka yihiin korontadana iyadana dad ka calaalahaya baan arkahay hay'adda korontada siisa inkastoo korontadu marna ayna aniga iga tagin meelahan joogay laakiin haddana dad ka calaalaya laakiin dad baa gooni u leh Soomaaliya shirkadda korontada hay'adda kharash baa la bixiyaa kulay maqaaliba miyay tagtaa ma aqaano laakiin dad cabasho ka ah oo anu aan xaqiijin karin baan arkay laba maxaan idin magaalada maxaa caqabad ka jira markaan idhi biyahana toos u dareemayba iyo korontada la igu yiri marka biyaha arintooda waxa laga qabto magaaladaasi magaalo istiraatiiji caasimada maadaama ay tahay biyaha hal la gaarsiiyo maayarku arinta xoogaha saaro baan u leenahay madaxweynuhuna waa magaalada uu ku dhex nool yahay waa inuu biyaha oo iska saxaa cabashooyinka soo gaarhay oo kaasa waayahay waad maasantiin reer baydhabo si guud baan idin salaamayna anagoo idin ka soo salaamayna Gole Studio aan halkaas ii dhaafno way dib u noqo hadda waxaad ku noqotay xamar waxaan u gudbaynaa barnaamijkii halka ayaad uga sii safraysay oo ka sar halka iyo garowe ayaad u duulaysay iyo la sacaanood la socota soo socda soo dhawow waa mahadsan tahay waxaan ku soo noqday horta reer garowe waa salaamayna haye way ugu xanaaqeen oo maaragtay dhowr jeer ba waxay iga codsadeen ka sar dhowr jeer ba waxay iga codsadeen inaan iyaga soo hormariyo haye oo soo booqdo marka magaalooyinka kale aan ka hormariyay way dhibsadeen dad badan oo taageerayaasheeda kamid ah haye dad xamaasad badan baa halka jooga haye social media na aad bay u isticmaalaan magaalooyinka ma ogtahay social media ku kala fiican yihiin hadda Djibouti oo kale waxa la yiri kuma badna dadka social media isticmaala ma la socotaa ma hada aad bay u isticmaalaan ma arkaas ku hubso ana ka huba waan arki doonaa waliba Djibouti waxa jooga dhalinyaro siday wax u duubayaan muuqaalada ay duubayaan uu ka standardsan yahay meelaha kale sida looga duubo ma garanay ma Faransiiska wax baray waliba Djibouti waxa jooga dhalinyaro siday wax u duubayaan muuqaalada ay duubayaan uu ka standardsan yahay meelaha kale sida looga duubo ma garanay ma Faransiiska wax baray aduu sidaan maqlay weeye laakiin wax la maqlay iyo wax la arkay way kala duwan yihiin Djibouti hadii Ilaahay yiraahdo waa baan u socdaaba laakiin san maqlay adu garaw ku soco Djibouti waynu tagi doonaa ku soco garaw waxaynu ka tageynaa magaalada Muqdisho waxaana u soconnaa garowe waan gartay intaanan garowe aadin waxaan yara jeegareeyay bal inay jirto diyaarad ka baxda garowe oo tagta Hargeysa
si aan hadhow aanan muqdisho mar kale ugu soo noqonine maadaama muqdisho soo noqosho kaw kaga siiyey bal inaan xagaa kasii baxoon sii dheelmado ood garawe to hargeysa hargeysana kasoo gudubto sax marka waxaa laygu yidhi diyaaraddaasi way jirtaa mid baa iwaalay aan u ducayn haye kolley garowe waan u socday laakiin safarka inaan soo yaro koobo ma gartay garowe markaan u soo baxahayey caadiyan dad fara badani waxay igu lahaayeen adeer de waa horey ahayd inaad noo timaado taageerayaashaydu anigu laakiin xoogaa qorshaan ku socday balancy baan wax ku dhex waday magaalooyinka saan u kala booqbooqanaya markaad eegto qaab nidaamsan dee dastuur baan leehay anigu ku gooniya baan wax ku dhex waday way gooniya marka magaalo walbaan tegayana shir baan ka gelayay iyadoo ku saabsan keliga adaa gelay keliga anaa gelayay marka garowe markaan tegey halow garowe sii qoray waxaa laygu soo xidhay 2 nin baa laygu soo xidhay oo isoo dhaweeya nin la yiraahdo Fagade ma maqashay Fagande waa magacin kaaraya ninku magaciisa iyo muuqaalkiisu waa kadeeda ninkaas oo saaxiibanahay oo saxafi ah yaa wuxuu igu soo xidhay 2 nin oo reer Garowe ah ninka Kismaayo isku aragnay oo shirkiisa mata bixinta iyo ka qayb galahay inta badan bugaagtii iyo bandhigyada iyo dadka safar weeyaan marka ninkaas 2 nin igu soo xidhay 2 nin baa Garowe markaan imid isoo dhaweeyay 2 nin Garowe intaanan ka soo degin yaan video yar korka ka duubay magaalada show reer Garowe ma jecla in magaalada dhakada laga duubo ma magaalada bidaarle ma aqaan waxay dhahaan magaaladu in hoosta laga duubo ee ku qurux badan tahay magaaladu magaalada da'yar weeye cali wanaad la socoto haddana magaalooyin fac waaweyn yay la tartansiiyaan nimankani oo wayna dhiseen kaabayaasha dhaqaalaha aad bay u hagaajiyeen way ku dadaaleen intay wax dhisan kareen laakiin dabaqyadu kuma badna magaalada waan gartay inta badanna magaaladu markayna dabaqyada ku badnayn korka aad uguma qurux badna marka laga duubo gaar ahaan meel sii fog marka laga duubo marka video yar oo magaalada airportka markaan kasoo degahay xaafad ka mid ah aan duubay iyaan markaan saa u degayaba de ani maxaad igu taqaanaa farafudayd airportkii markaan saa uga sii degayay in gaadhiga sii saaranayaba waan kusii tuuray Garowe aan dhakada ka duubay baan ku qoray labadii nin sawirkaana ma quruxsanayn video yar oo aan qurux badnayn buu ahaa waan gartay labadii nin ee saaxiibaday ahaa oo halkan aad uga salaamayo ganacsade Cabdifataax Dhagasool iyo Maxamed Soomaali hotel bay ii kireeyeen 5 star oo qurux badan way geeyeen boo soo dhawow way ugu dhaheen hotelku waa annaga magaaladaadii baad joogtaa waxaad u baahatana na soo weydii iskana naso maqaaxidiina wataa cuntadii wixii uu leeyahay way iga tageen videogu yaraan ku tuuray baan saa u fiiriyay saa wuxuu marayaaba gow magaaladiiba waxaaba ka socdaba kabtaydii ma aragtay oo laga soo horjeedo magaaladiiba inaan xumeeyey oon suuro xumeeyey oon caayay oon korka ka sawiray yaaba commentiyadu is haystaanba commentiyadu intooda badan waxaa ku qoran boowe ka saar hadday ku yidhahdeen boowe ka saar maxaad uga saari weyday ka saari maayo mobilka miyagaa nala leh waxaan idhi kama saarinay adeer shaqo yeeshaan ku idhi wax aan ka saarahayo ma jirta baan ku idhi xataa qolyo dowladda u shaqeeya ay soo wacay iyo caasimadda iyo oo yidhi boowe inaad suuragal ma tahay inaad videoga ka saarto dadkiibu waxoogaa ayaa ka xumaadee maya baan ku idhi anigu waxaan meesha geliya kamaba saara dadka de adigu maxaad u eegi weyday dadka martida aad u tahay eed u timid magaaladooda timid eed ka sugaysa inaad la hadasho oo ka sugaysa inay kusoo dhaweeyaan oo muxibayn iyo kalgacal aad ka sugaysa inaad isla hortagtaan hadday ku yidhahdeen muuqaalka boowe waan dhibsanay ka saar inaad ka saarto maxaa adiga kugu maxaa kugu qasbay inaad diiddo waxaa igu qasbaya anigu sidaydaba nolol xaqiiqa baan ku noolahay dadka Soomaaliyeedna waxaan baraa inay nolol xaqiiqa ku noolaadaan ma garatay anigu videoga aan magaalada korka ka duubay waa meel magaaladii ka tirsan waxaan meel kale koobi ka soo qaaday ma marka
qofku markuu diyaarad la socdo ama magaalo soo galahayo ama xataa magaalada dhex socdo meeshuu duubanayo xor buu yahay ku sheegay hadda ka hor inuu xorriyadda baasha la yiraahdo kama kaftamo marka anu waxaan rabaa inaan comfortable dareemo oo meeshaan raba aan duuban karo oo magaalada ninkii siday tahay aan ku qanacsanayn ha qurxisto laakiin aniga meel yaroon sawir ku qabtay in la dhaho ka saar iyo ku celiya xaga ka waxee iyo magaca ku qor iyo waxa ma qor anigu raalli hada baan ku yidhi wax aan ka saarayo video ah ma jiro aan kala xishoon aan ku yidhi nimanka xukuumaddu shaqeeya saaxiib markay kula soo hadleen ku yidhi bowe suuragal ma tahay nimanka hadda waxoodu waa codsi ugu amar maaha suuragal ma tahay bulshadaanadii baa ka xumaatay arrinkaas inaad ka saarto maxaad ugu xurmeyn weyday haddiiba saa lagu sharfay oo ku yidhahdeen suuragal ma tahay haddii ku yidhahdeen suuragal ma aha baan ku yidhi waxaa xurmeynta keena anigu nin waxaan ahay magaalada soo booqday soomaali ah magaalo soomaaliyeed yimid weliba magaalo ehel baan imid anigu garoowe magaalo ehel degan yahay wey sankan saa u taagaya cid ila hadli karta ma jirto ma garatay magaaladeedii baan joogaa marka codsi la ii dhiiba aniga codsigaasi haana waan aqaanaa mayana waan aqaanaa kolba midka ay ila noqotaan sameeyaa anigu marka waxaan ku yidhi videogaasi waa socday baan idhi meeshaydii baan ayar iska deganaa subaxii baan video yar iska duubay oon idhi xageed igula talin lahayd inaan booqdo dadku meelo kala duwan bay ii soo sheegeen inaan hadda magaciisa xasuusanin baa yaa fariin aad cajiib ii soo diray wuxuu igu yidhi magaalada waxaa ku yaala meel dadka autismka qaba lagu daweeyo oo isbitaal ah oo lagu hayo waxaa jira iskuul dadka indhoolayaashu ay leeyihiin machad sidoo kale waxaa jira iskuul ay leeyihiin agoonta magaalada saddexdaa meelood inaad booqataan kugula talin lahaa buu igu yidhi niyo waxba meelahan kale iyo waxaa jira iskuullo dadka indhaha leh ay wax ku bartaan haa machad iskuul ah oo dadka araggala ay wax ku bartaan baa jira oo garowe ku yaala oo garowe ku yaala arrin fiican haa albasar baa la dhahaa albasar haa marka waan booqday waan soo waraystay mid ka mid a macallimiinta iskuulkaas baan waraysi ka soo qaaday cajiib ah isagu markaa indhalaya maslaxaadkii uu qabaaya dadku wax baraa isna arag uu la'yahay macallimiintu intooda badani araggii bay la'yihiin ba dadka wax ku bara meesha marka baahiyahoodii iyo waxaasaan kala soo hadlay qalabka wax lagu baranayay iyo baashii wax daabacaysay farta dadka aragga inuu ku yaryahay bay ii sheegeen adu baahiyaha jira meesha waan booqday waxaan booqday iskuulka marka maan kaa dhexgale ma dowladda u dhisay mise dad muxsiniin ah oo ayaa dhisay dowladdu way taageertaa laakiin wuu ka madax bannaan yahay waa iskuul gooni ah weeyaan marka laakiin taageeradoodu kama marnasay ii sheegeen waxaan booqday garowe general hospital inkastoonan dhex wareegin laakiin waan tegey hadda ka hor baan isbitaalka wax uga baahday oo 2018 yaan mar waraaqa uga baahday caafimaad oo ay ii sameeyeen oo mahad celinayaa waxaan booqday qaar ka mid a buundooyinka magaalada buundooyin bay leedahay oo togbaa waan garanayaa yara dhex marmara magaaladu waxay leedahay jidad cajiib ah oo laamiye ah aad bay laamiyadu uga dhisan tahay midda kalena laamiye waasac ah oo dhulka soomaalida kaleeto inta badan aanan ku arag marka jigjiga laga reebo oo aad u balbalaadan master balaan aan caadi ahayn bay magaaladu leedahay laakiin meelaha dadku maro oo kaleeto meelo badan oo ka mid ah waxaa jira ay dhagaxaantii iyo carradii iyo wixii tuuran yihiin oo sida inagu aynu marmarka intaan u dhigno laamiga inagu waxaynu raacinaa mar walba meeshu dadku marayay iyagu waxaad muddaa laamigii oo ballaaran meeshii kale laakiin in laga yar tagay baad muddaa laakiin laamiyadeedu caadi ma aha laguma gaari karo haddii laamiyada la qiimeynayo dee horta magaalooyinka isku si looma wada qiimeyn karo sax muqdisho oo kaleeto aad bay u laamiye badan tahay laakiin maadaama caasimo tahay dee waxaan ka arkay baaba iska yar isbarbardhig fara badan marka laguma samayn karo magaalada qaarkood cidna ma barbardhigi karno laakiin magaalooyinkan derajada labaad iyo derajada saddexaad iyo marka la eego waa mid ka mid a magaalooyinka ugu laamiyada badan uguna laamiyada qurxoon magaalada waa meel nadiif ah qashin iyo wax meel yaalli iyo aadan arkaynin hoteelada fiican way leedahay laakiin hoteelada oo kaleeto way ka yara khaldan tahay hoteelada aad bay u dhisaan marka
magaalada dadkeedu ma badno haye waa magaalo siyaasadeed magaalo ganacsi iyo lama muuqanin marka dadkeedu aad uma badnayn hoteelada ku yaala waaweynidooda iyo dadka capacity-ga dadka meesha jooga iyo shaqaalaha ajnabiga ee hoteelada ka shaqeynaya isma leh xoogaa marka waxaan ku talin lahaa in waxyaabo kaleeto oo maaragtay maalgashi ah in waxyaabo kaleeto sameeyaan horta ganacsiga way naga fiican yihiin nimankaasi ganacsiga aad bay ugu fiican yihiin kulligood kuma wada fiicnee Garowe iyo way kala tahay Boosaaso haddaad Puntland isku qiimayso haa way naga fiican yihiin laakiin Garowe ganacsi nagama fiicna may Garowe ganacsiga way naga fiicanta meesha ma anaga kaaga waran mise niyo adaa nooga warramay calaw intaan kaaga horeeyban way adaa iga horramay raalli oo shaydaan baa degdegay hay marka waxa weeye ganacsi iyo dhaqdhaqaaq fara badan oo aanu Garowe ku soo arkay ma jirto laakiin magaalo dhisan oo dadkeedu qurxisteen oo waxaysteen oo nadiifisteen hoteelo waaweyn oo iska waxaysan oo dadkuna ku yar yihiin yaan anigu soo arkay oo qaarkood la ii sheegay inay $100 milyan ay ku baxday oo qaarkood hadda gabagaba yihiin ma garanayo kharashka hoteelkaasi galay iyo waqtigu soo noqon doona xataa ma fahmi karaan anigu hadayna dad kale u soo soconin qolo dhulbaantaha hadda kahor waxaa la yidhi yaa qolo reer Garowe oo majarteena yaa la kaftama waxay dhaheen war masaajidkan masaajidka jaamica magaalada bartankeeda ku yaala aargada agteeda yay dhaheen masaajidka dhismihiisa ka qayb qaata dhulbaantuna meelaha way u badan yihiin dhulbaantii waxay dhaheen baa la yidhi masaajidkan dhismihiisa ka qayb geli mayno sababtoo ah magaaladu hadday weynaato oo intay dad fara badan yimaadaan ganacsigeedu kobco oo hoteeladu idinku yaraadaan reer Garowe hadhow hotel u bedelaysaan marka anagu meel la bedeli doono waxba ku tarsan mayno